بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو عبد الرحمن maanta waxaynu soo jeedinaynaa cashar cusub oo ku saabsan sida aad u dhiirigelin kartid sida aad u dhiirigelin kartid maasijyada Facebook kugu jira. Sidaynu wada ogsoonnahay walaalayaal, maasijyadu si fudud looma dhiirigelin karo. Haddii aad rabtid inaad dhiirigeliysidna waxa ay kugu qaadan kartaa waqtiyo badan, laakiin waxa ay kugu qaadan kartaa waqti badan haddii aad rabtid inaad wada dhiirigeliysid. Laakiin maanta waxaynu sharaxaynaa sida ugu fudud ee aad u dhiirigelin kartid maasijyada Facebook. Marka ugu horeysa waxaad tagaysaa safxadeenan ama page-keenan. Halkan ayaad ka helaysaa linkiyada iyo dhammaan information-ka ku saabsan. Kadib markaad tagtid waxaad riixaysaa link-gan xagga hoose aan ku soo qoray. Markaad riixdid wuxuu ku geynayaa meeshan ayuu ku geynayaa. Meeshan waxaad ku add garaysanaysaa ama aad ku darsanaysaa mutasafixa ama browser-ka aad isticmaalaysid. Kadib markaad halkan timaadid waxaad taabanaysaa add to Chrome. Wuxuu kugu darayaa Chrome-ka. Kadib markuu kugu daro sidaas oo kale ayuu soo baxayaa. Kadib marka uu kuu soo saaro maasijyada ayaa taabanaysaa. Marka halkaa wuxuu kugu soo saaray delete all message. Dhiirigelin dhammaan maasijyada. Waad taabanaysaa. Waxa uu bilaabayaa inuu dhiirigeliyo dhammaan maasijyada kugu jira Facebook. Waad aragtaan iminka hal message muu soo reebin. Wixii message ee ugu jiray waa uu dhiirigeliyay. Waxaan filayaa inaad ka heshay. Waad aragtaan dhammaantood wuu dhiirigeliyay. Waxaan filayaa inaad ka heshay oo aad fahantay maanta casharka wuxuu ku saabsan yahay. Ha ilaawin inaad like noo saartid, subscription aad noo saartid si casharku aynu u soo kordhino maalin kastana aynu soo gelino. maanta casharku intaas ku saabsanaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.